Rabadaan wanaagsan daawadayaal saaka ayay ahayd markii ay mar labaad yuhuuddu weerar ku qaadeen masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Tan waxay timid maalin kadib markii ay weerar hore ku qaadeen masaajidka maalinimadii Jimcadii, xilligaasi dadka muslimiinta ay isu diyaarinayeen iyagoo sooman inay salaada Jimca halkaa ku tukadaan, ayna ku sugnaayeen in ka badan 60,000 oo muslimiin ah. Dowladda Yuhuudda ayaa ku andacoonaysa gelitaanka maanta ay mar labaad masaajidka galeen inay ka dambeysay kadib markii dad Falastiiniyiin ay dhagax iyo quraarado la dhaceen baabuur ay saarnaayeen dad Yuhuud ah oo u socday inay kasoo barakeystaan gidaarka ay barakeystaan, kadibna ciidamada booliska ay halkaa galeen si ay u kala diraan dadka Falastiiniyiinta ah. Hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka ee Falastiiniyiintu waxay sheegeen in 17 qof dhaawacyo ay soo gaareen, 3 ka mid ah dhaawacyadoodu ay yihiin kuwo halis ah, loona diray cusbitaal. Boolisku waxay masaajidka gudihiisa kasoo qabteen 9 qof oo ay sheegeen inay jajabiyeen baabuur waday dad Yuhuud ahaa oo cibaadadooda u socday. Dowladda Falastiiniyiintu waxay ka codsatay Mareykanka inuu joojiyo aamuska uu ka aamusan yahay waxa Yuhuuddu ka sameynayso bariga magaalada Qudus, taasoo ah meel ay xoog ku haystaan. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee reer Falastiin waxay ku eedeysay Yuhuudda inay wadaan daandaansi, wax ixtiraamana aan u hayn goobaha lagu cibaadaysto. Wadaadka ugu sarreeya diinta Kaatooliga oo maanta ka hadlayay arrinta ka taagan magaalada Qudus waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga leexdo goobaha lagu cibaadaysto, dowladuhuna aanay ku degdegin, isagoo ka codsaday Israa'iiliinta iyo Falastiiniyiintuba in ay ilaashadaan goobahoodaas. Weerarka maanta markii lagu daro kii maalinimadii Jimcadii ay masaajidka ku qaadeen waxay ku xirxireen dad ka badan 300, taasoo dadka Yuhuuddu siday ula dhaqanto Falastiiniyiinta wax ka qoran ay sheegeen inay yahay tii ugu badnayd oo hal mar dad Falastiiniyiin ah muddo 20 sano ah oo intan la eg ay xiraan. Dhaawaca dadka Falastiin Jimcadii iyo maanta markii la isku daro waxa uu gaaray 158. Warbaahinta adduunka waxaa laga arkayay maanta iyo maalinimadii Jimcada ahaydba booliska oo halkaa u adeegsanaya gaaska dadka kaga ilmaysiiya iyagoo weliba dhex taagan masaajidka barakeysan. Booliska Yuhuudda waxay ku andacoonayaan in Falastiiniyiintu ay isku dhex qaldeen siyaasadda iyo cibaadada Ilaahay, mar walba ay masaajidka yimaadaanna ay u adeegsadaan meel dhagax ka soo tuuraan. Aynuna ognahay Yuhuuddu markasta inay goobta barakeysan weerar ku qaado, ayna ka aragtay madaxda adduunka Islaamka maanta haysta oo ah kuwo aan tabar lahayn. Waxaa adduunka ka jira 57 dowladood oo aqlabiyadoodu tahay dad muslimiin ah, taasoo ka dhigaysa 57 madaxweyne inaanay ahayn kuwo awood leh oo aankay iska qaban kari waayey dowlad ay ku nool yihiin wax ka yar 5 milyan oo Yuhuuda. Waa maalin Rabadaan, Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaashado diintiisa. daawada fadlan ku xirnow kanaalka, subscribe saar, gambaleelkana furo. mahadsanid.